بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا waxaan filahayaa in aad garanaysaan qofka hadlahayo waa aadan shimberlays. ugu horreyn waxaan doonayaa inaan halkan salaan ka gaarsiiyo ummadda Soomaaliyeed ee Islaamka ah meel kastoo ay caalamka kaga nooshahay. munaasabadda ciida darteed waxaan ka codsanayaa inay iscafiyaan aniga qof ahaan ay cafiyaan anna qof kasta oo muslim ah adduunka meeshuu raba ha ka joogay cafis buu iga yahay. intaa ka bacdi waxaan doonayaa si gaar ah inaan ula dardaarmo ula hadlo walaaladay reer Gedo. maalmihii lasoo dhaafay waxaa gobolka Gedo gaar ahaan degmada Baladxaawo ka socday shaqaaqooyin runtii aan wanaagsanayn taasoo u dhaxaysay ciidamada qalabka sida iyo maxaa la yiraahdaa shacabka degmadaas ku nool. sidaan wararka ku helayno waxaa la sheegayaa shakhsiyaad dhalinyaro ah oo ciidamadu ay gacanta ku dhigeen isla markaana loo geystay jirdil. runtii wax habboon ma ahan in ciidamada qalabka sida shacabka ay u dhaarteen ay dartood kanaacada u cunaysay cadceedda u fadhiyeen cadowga ka ilaalinayeen inay dhibaateeyaan. runtii wax la qaadan karo wanaagsan ma ahan. bilcagsigeeda dhanka kale markaad eegtid shacabkuna ma ahan runtii haddii uu qalad dhacay in ayaguna yiraahdaan qalad waxaan ku saxaynaa dagaal iyo maxaa la yiraahdaa dhagax tuur iyo ciidamada oo wadooyinka laga xirto ayadana ma ahan wax sax ah. marka shacabka waxaan farahayaa walaalayaal isdejiya waa la socotaan ciidamada idinla jooga waa ciidamadii maxaa la yiraahdaa idinka hortaagnaa cadowga dhanku doonaba ha ka soo duule. waa ciidamadii idin xoreeyey waa ciidamadii runtii naftooda idin horay in badan oo ka mid ah ay naftooda ku waayeen ayagoo idin difaacahayo. marka waxaan leenahay qalad laguma soxo. dabcan shacabka inay dhagaxyada ka daayaan ciidanka erayada xamaasadda dhalinahayo iyo dhiilada iyo kicinta ee ka imaanaysa shacabka waxaan ka codsanayaa inay joojiyaan. sidaas leeg ciidamada waxaan ka codsanaynaa iyo mas'uuliyiinta gobolka inay shacabku helaan cadaalad oo aanay dhicin shacabka in loo xoog sheegto qoryaha maxaa la lala dhex joogo iyo canshuurtooda maxaa la lagu dhibaateeyo iyaduna wax sax ma ahan. marka arrinta la isu wada geeyo waxaan ka codsanayaa in la isu turo la isu naxariisto shacabka waxa ay tabanayaan wax laga qabto. taa ayaan si rasmi ah uga codsanayaa mas'uuliyiinta gobolka gaar ahaan kuwa jooga Doolow iyo nawaaxigeeda iyo Baladxaawo. waxaan leenahay walaalayaal sax ma aha wax dhacahay wax la qaadan kara ma aha. shacabkana waxaan leenahay war ha noqonina furihii lagu qabsan lahaa degmooyinkiinoo gacanta ay uga bixin lahayd. siyaasado isdiidan ayaa dalka ka jiro halkii aad ka muujin lahaydeen midnimo iyo isu soo dhowaansho. xal maaha walaalayaal dhagax in la tuuro oo ciidamada laga hor yimaado xal maaha. waxaan kaloo xal ahayn in maxaa la boorar la qaato magaalada la gubo ayaduna xal ma aha. soo socodka magaalada in laga hor yimaado xal ma aha. ciidamada qalabka sida xabadda sita cadceedda iyo milicda idiin taagan dhagax inaad la dhacdaan xal ma aha. marnaba ma soo dhaweynayo bilcagsigeeda qof shacab in la dhibaateeyo oo ciidamadu ay dhibaateeyaan ayaduna sax ma aha. marka guud ahaan waxaan codsanayaa oo aan si xushmad iyo kooday ahaan iyo damqasho ahaan deegaankaas darteed u codsanayaa ciidamaduna inay soo qabtaan ciddii lagu tuhunsanaa inay ka dambeysay falalkaas ama haddii ay yihiin mas'uuliyiinteeda ha ahaadeen ama ha ahaadeen cid kale oo ayaga ka tirsan. cid kasta oo shacabka dembi ka gashay waa in la hor keenaa sharciga weyn cidina sharciga kama weynaa. taa ayaan ka dalbanayaa maamulka iyo mas'uuliyiinta gobolka gaar ahaan kuwa degmada Baladxaawo. taa ayaanu ka dalbanaynaa. bilcagsigeeda shacabka waxaan leeyahay walaalayaal xilli kulul baa lagu jiraa abaar baa laga soo doogahayaa. waad ogtihiin waddanka waxaa ka dhashay isbeddel dowladeed ayaa ka dhalatay. dowladdii cusbayd weli ma aanay soo gaarin ama kama hana qaadin dalka iyadoo weliba calaama su'aal fara badan cabsi ay ka qabaan dadka reer Gedo in ciidamada halkaa ku sugan la soo celiyo ay dhici karto. ha u noqonina idinka marmarsiinyo lagu galo iyo furo siyaasadeed oo qaldan ee gobolka looga shaqaysto yaanay noqon arrinta Baladxaawo. waxaan leeyahay shacabka isdejiya. xal ma aha askari xabad wato inaad dhagax ku tuurtaan xal ma aha. askartuna xal ma aha shacabka ay ilaalinayeen inay ama xabad ku dhuftaan ama dadka si sharci darra u arursadaan oo u jirdilaan ayadana sax ma aha. arrintaas sida lagu xallin karay ugu wanaagsan ayaan u dalbaynaa odayaasha dhaqanka iyo guurtida gobolka inay maxaa la yiraahdaa si farsamaysan
oo dhow oo naxariis leh uga qayb qaataan marnaba lama aqbali karo in dhagax tuur joogta iyo maxaa la yiraahdaa rasaaseyn ay ka socoto gobolka wax la qaadan kara maaha sidaa kuma jirto caafimaadka iyo deganaashada gobolka kuma jirto marka waxaan leeyahay shacabkayga aan jeclaayo oo sharafta badnaayo walaalayaal isxakameeya walaalayaal ka waantooba waxyaaba dhibaato keeni kara ka waantooba walaalayaal waad ogtihiin cadowga idinku heegaaran ama idinku duleedka idinka xiga dhan waliba waad garan kartaan sidaa darteed yaani noqonin degmada balad xaawo oo ah degmo aad iyo aad u baaxad leh ballaaran meel cadow uu ku soo gabado dhanku doonaba ha ka yimaado waxaan idinka codsanahayaa in la isxakameeyey intii la karo ayaan dalbanaya taa ayaan idinka codsanahayaa ka oday ahaan idinkoo weliba eegahaya waqtiga lagu jiro waxaanu galnay ciiddii ayaanu galnay xilligii iscafinta ayaanu galnay xilligii ilaahay dacwaadka uu aqbalahayay iyo ducooyinka ayaanu galnay aanu ka faa'iidaysano walaalayaal ha laga digtoonaado arrintaa ayaan idin farhayaa isla fursaddan waxaan doonayaa inaan uga mahadnaqo Gather Relief oo runtii dhul oomana ahayd ceel ka qoday waa Bamba Xaliimo waan u hambalyeynahayaa gabdhaha muxsimiinta ah ee wanaagga jecel ee u guntaday dadkooda iyo dalkooda ceelasha ka qoday waxay ugu maqaala buraa inay ku xigto in la doonayo in ceel laga qodo waxaan leeyahay ilaahay ajar iyo xasanad ha idinka siiyo ku dayasho ayaad mudan tihiin ammaan ayaad mudan tihiin dhammaan dadka ganacsatada ee gobolka ka soo jeedo xilli adag baa lagu jiraa inaad gacanta isqabsataan ood u gurmataan dadkiina iyo gobolkiina waa waajib idin saaran wey waxaan arkahaya baar dheere oo la leeyahay waxaa ka taagan macluul baa ka taagan ma rumaysni baar dheer inay ka jirto macluul waqtigan lala baryo tago ma rumaysataa inay ka jirto waa jiraan dad barakacayaal oo dhibaataysan guud ahaan dalka inay ka jiraan muqdishada aan ku sugnahay barakacayaal milyanisa ayaa ku sugan oo degan marka ma qabo in loo tugsa tago oo la yidhahdo halkan hoog iyo baa ka dhacay waxaan qabaa dowladda dhalanaysana aan ka codsanahayaa inay isu furaan gobolka oo degmooyinkiisa laga saaro cadowga dhex degan si ay dadku isugu gurmadaan ayagu maxaa la yidhahdaa xoolahooda u aruursadaan danahooda u qabsadaan in ceelal loo qodo oo dhulka fog oo biyaha ka fog iyo webiyada maxaa la yidhaahdaa wax laga qabto ayaan dowladda dhalatay aan ka codsanaynaa ayagana inay gobolkaas il gaara ku hayaan waxaan ognahay gobolkaani inay ragaadisay colaado dowladda Kenya oo caado ka dhigatay inay iska duqeyso lama aqbali karo waxaan leeyahay dadka gobolka xaf sameeyeen isku tashi ayaa looga baahan yahay waan rumaysnahay inay jiraan xildhibaano gobolka ka soo jeeda ama ceel qaalow ha lagu doorto ama meel kale ha lagu doorto deegaanka adinka ayuu idin sugahayaa waa mas'uuliyad idin saaran markaad golaha shacabka joogtaan inaad matashaan deegaamadiina inaad ka hadashaan duqeymaha iyo dhibaatooyinka loo geysanayo inaad ka hadashaan biyo la'aanta inaad ka hadashaan colaadaha ka jiro in loo raadiyo dib u heshiisiin Jubbaland oo maxaa la yiraahdaa dadkeeda gacanta isku qabsadaan waa waajib idin saaran wey ama sax ku soo baxa ama qalad ku soo baxa maanta adinka ayaa xilka huwan laakiin haddii aad ceel qaalowdiin iyo meel idinka soo doortay aad matalaysaan iyaduna waxay noqon doontaa aragti gaar ah oo dadku ay maaragtay idinkaga sii fogaadaan ayay noqonaysaan kasbada dadka intaa ayaan farahayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in lala shaqeeyo dowladda cusub ee dalka ka dhalatay ha lala shaqeeyo waa sax nabad iyo nolol baan ahay waan ahaan doonaa laakiin diyaar waxaan u ahay inaan la shaqeeyo dowladda dalka ka jirto mabda aan u imid ma ahayn shakhsi mabda aan u imid wuxuu ahaa inaan heel iyo hooba garab istaago ciidamada qalabka sida dhismaha dalka ka socda iyo horumarka sidaa darteed waxaan codsanayaa shacabka Soomaaliyeed aniga saaxiibada dhowilaa dabcan taageera dowladda taageera inta aad arkaysaan inay dowladda oo shaqeynayso taageero garab istaaga waxyaabaha ka qaldan haddii aad aragtaan dabcan halkii aanu mucaaradnimo iyo waxaan loo baahnayn muujin lahayn aan isku dayno inaan saxno dhaliilaha iyo dhibka jiro inaanu saxno waa dowladdeeni maxaa la yidhahdaa madaxdu waa madaxdeeni hadday wax ka qaldamaan si nidaam wanaagsan aanu u saxno taa ayaan qabaa halka iska horimaad iyo propaganda iyo wax aan jirin laga tabin lahaa waxaan nasiib darro ah oo fursaddan weli waan kaga sii faa'iideysanayaa waxaan arkay dhalinyaro baraha bulshada si waali ah waxyaabo dowladnimadeena iyo jiritaankeena lid ku ah ka tabinayso sida madaxweyne xasan sheekh waa xanuunsan yahay waa dhimanahayaa xaggaasay ka booday madaxweynuhu waa madaxweynaheeni qabrigiisa midaan ahaynna ma gelahayo intaa la socdo
shaki kama taagno cidaan dhibanayn ma jirto laakiin qabrigiisa cid gelaysa oo kale ma jirto isagun baa gelahay marka halkaanu habaarka iyo dacaayadaha ayaa waxaa ka fidin lahayn aanu u ducayno in ilaahay hawsha culus ee dusha laga saaray inuu ilaahay u fududeeyo dhammaanteen ballanteennu waa soomaalinimo iyo midnimo waxaanu ku weyno wallahaana ku helayn tafaraaruq iyo maxaa la yidhahdaa haybhab iyo iskala sooc kuma helayno walaalayaal sidaad u dhantihiin waa idin jeclahay aanu u ducayno dalkeenna ballanteennu waa dowladnimo ballanteennu waa inagoo gacanta isqabsanno ballanteennu waa inagoo isu turno aad iyo aad baan idin jeclahay waxaan idinku dhaafahayaa sidaa iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu